أبي دل مركود دل زائدة أو حماة قف كل شيء دل لها ما أنت قف قبل مري لها هاي دل توجش الله وهي مريم محمد waxay la gubanaysaa walwalka iyo dareenka ay ka dhaxshay gabadheedii oo aabihii dhalay uu ku dilay iqaab aad u xun oo jirdil iyo goodoomin aan 3 maalmood oo baad iyo biyo la siin ah waxa السلام عليكم أصحاب فاضل مقرح وعد السلام عليكم استو أدونك جوكتين وحارجينا أنا عافماد قبتين الحمد لله أنا قنوا عافماد قبا هدي أنا وعصبتاي هنجي لا منسى سبسكرايب لايك كومنت انشير إن شاء الله يو أصحابتي ظهر إلى جوكتين وحان ليهم مرة والبكمد دالم ما هاد علنتينا ما أنتو حكا هاد لنا سور كاسا أوجيدين قبدا سيرتا إيا آبهد أو كرعي وأرين مغالي arrintan waxay ka dhacday magaalada Buurhakaba gabadhaas u jeedin aabaheed ayaa haystay aabaheedna wuxuu qabay islaan kale waa qiso xanuun badan aabaheed wuxuu qabay islaan kale gabadhi waxay ka qaadatay eedadeed ayay waxay ka qaadatay xijaabka markay ka qaadatay xaafadaha iskaga aaday dan islaantii waxay dhahday eeda inay arxan lahayn islaantii waxay dhahday gabadhaadi xijaabkayga iga qaadatay wayna wareegtay adag wuxuu u cararay gabadhii oo soo qabtay afka maro uga xiray silsiladna wuu ku xiray gabadhaas waxay u naf baxday iyadoo dhahaysa hooyadeeda arki doonteen iyadoo dhahaysa waxaan u baahanahay biyaan u baahanahay xasbunallah wa nimca wakiil ilaahay oo adoomadaadaan nahay gacan bini aadan ha nagu sababin yacni naxariis darrada eedada ku jirto ma garato xijaab muxuu yahay waa maro dhamaanaysa waa maro aan qiimo lahayn waxaan ku iri inaa eedo arxam male ilaahow eedan ka magan galna eeda arxam male eeda arxam laay allahu akbar gabadhaas iyadoo dhahaysa biyo 3 bari aysa biyo biyana cabin cuntana la siin afkana mara uga xirneed waxa la yiri sahadleyn waxaan ku iri waa dareemi kartaa qof aan 3 bari cuntana cun biyana cun nafta ka dhacday gabadhaas yarta dan markay maqleen walaalaheedii yararka ahaa in walaashood eedadood sabab u noqotay xijaab darteed ay ku dishay gabadha yarta la wareysanayo waxay dhahday iyo wiil yar oo iyadana ka yar waxaan ka cabsaday tiri aabe maadaama uu eedo gabadhaas darteed loo dilay gabadhaas darteed xijaab loo dilay in eedadayna darteed la ii dilo eedaday waxay tiri cunto ima sii jirin gabadh yarista ah dhahaysa videoga arki doontiin eedaday cunto ima sii jirin ay dhahday wax cunta ima sii jirin allahumma musta'an waxay tiri waxaan cabay tiri kalooriin aan cabnay waxa maadaama aas dhahnay tiri aabaha maadaama haduu walaasha xijaab darteed u dilay adinkana idima dhaafaayo والله وعلى الحمو المير أو صغيرة أو حجاب درتي سلو دلايو وحن كوري سوح والباء دونك والو أركايا وح والباء بالحجاب هاد محوية مرة محيتها ناقتص أقل الحمو وأرحم درنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي المير أو سبي أو مركة قاتي يعني وحا لذين تيغا إيد إنيس أرحم لهين قبلها وحان لا يا سوماليد المها انت دلك دقاقايا ور المين أدينك كورسادة دب إيه داف بلقى بصادة عنوغا لشعلها وقد تيغن eeda arxam male ninka naakalo iska guursan karaa waxaan ku dhahay eedu waa u jeedin naxariisinaysa lahayn ilmahaaga naxariis ma tusayso waxaan ku ri wanaag kama helaysid kuweeday waxaan ku ri nafaqada siisanaysa kuwaagana ma fiirinayso hooyo walba ilaa ma 10 caruur lagu furo wax walba oo ay maanta asleedahay way ku noolaan karaan u sameey u shaqeyso wax walba dhuxul u gad ayna time يعني هكحشن شقة عيب ماهن المها ها كتورن إيدا أرحم مال إيدا آبا قبا أرحم مالها حسبنا الله ونعم وكيل أبي دل مركود دل زائدة أو حماة قف كل شيء دل لها ما أنت قف قبل مري لها هاي دل توجش الله وهي مريم محمد waxay la gubanaysaa walwalka iyo dareenka ay ka dhaxshay gabadheedii oo aabihii dhalay uu ku dilay iqaab aad u xun oo jirdil iyo goodoomin aan 3 maalmood oo baad iyo biyo la siin ah waxa uu sawirmaya gabadhii ay dhashay oo xitaa iyadoo sakaraadaysa dhibic biyo aan la siin aan saa'ida oo xanuunsaday markoo la ii sheegay qatacbaan ku maray ilaa dhiig iga kaco dhiig liigu shubaa ku gaaray kan waxa jeclaa lahaa inaan gabartay xaqeedana lagu soo dhiqiyo Faysa Abuukar Ibrahim ayaa u geeriyootay baahi iyo oon uu aabaheeda ku ciqaabay oo jirdilna uu ugu daray sababta intaas oo dhan loogu sameeyay hooyadan ay tiiranidu soo ridatay ayaa ka waramaysa sila irafaada ku dileen dilkan eedada ku damboosay
eedada aabaha qabo waay eedada jalbaab iyada leedahay ina eedada jalbaabkeeda gabarta inaa qaadatay guriga ayeedeeda la tagtay gabartaada jalbaabaa qaadatay guriga ayeedeeda aadi wareegaa ku jirtaa safdarteeda isna waa raadiyay ninka guriga keenay silsila iyo gacmaha ilwaha ku xiray afka ku xiray sujugta looga hay iyadoo galaas biyaha la sii dhigaysaana taa loo quuri waa la sii waay eedada waxaa tacsiida ku dhex sheegtay iyadoo galaas biyo isi iyadoo dhigaysa nafta ka baxday galaas biyaha taa waa sii waaya dhahday alle eedada aabaheeda ay dhahay galaas biyaha dheeda Faisa walaashay waa la dilay hooyadeena inay iga dhimnayso amaleena ninkaas la yeelinayo kabacd Carolina xijaab darteeda loo dilay waya xijaabkaas ka lahaa eedada biyo badal ma isii jirin ani wax isbii isi haddaa way u qeylay jirta oodada daaima hadda biyo isii jirta meeshii furi jirta hooyo Maariye Maxamed Cumar oo isbitaal u gashay naxdinta ay ka qaaday geerida gabadheeda ayaa codsatay inay cadaalad u hesho waxa ku codsanaya ninkan iqaabta leh hada la marsiyo way bariga kun qof oo sacamala ilmahooda gacantooda ku sababsanayeen cidaneeysana malaha eedadaas camal haday saan laga dhaafay eediyaal badan halaawo karaan oo ilmo iyagu dhalan gacantooda ku dilo karaan laakiin haday saan laga dhaafo dimbi weyn waay haday la dhaafo hataa ani adduunyo aakhira ma dhaafay dilka aabeed u geystay dil xanuun badan waay oo qof ibn aadan loo galeen qof la korkiisa la jarjarayo oo gacmaha ay afka mar looga xirayo oo qaylada dariska ha maqlan darteeda loo xirxirayo lagu dhahay gabarta isbitaalka marka la geeyay kaadada xarkadaas ka socday lagu dhahay 3 maalin guriga biyo badar loo siin guriga isku xirnay qof ibn aadan 2 maalin biyo loo siin saab isbedelaa baad waxa ibn aadan ku nool biyo leeyahay dhacdadan xanuunka badan ayaa waxa ay ka dhacday degmada Buur-Hakaba ee gobolka Baay maalmo kadib booliiska degmadaas ayaana gacanta ku soo dhigay aabahan gabadhiisa dilay